waan salaam dhammaan saaxiibada ku xiran janaalka Bidaasho aad ayaan idinkaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan aad ula socotaan muuqaaladan bartan soo dhigno soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan rabaa inaan idin wadaago xog aan kaga hadli doono 7 aflaam oo caan ah taa oo iska diida tirshada caanka ah Kajal haddaba waa kuwii 7daasi filim xogtaasi ayaan idin wadaagi doonaa balse intaan u gudagelin xogtayda ama muuqaalkeena waxaan idinka codsanaynaa inaad janaalka subscribe inoo saarto haddii muuqaalku cajab gelinahay ilowin hadhow inaad like inoo saarto soo dhawaada saaxiibayaal waata saaxiibayaal haddii aan u gudagalno muuqaalkeena tirshada caanka ah Kajal waxay kamid tahay tirshadaha ugu magaca weyn ama saameynta weyn ku leh shirkadda caanka ah Bollywoodka Kajal waxay fankii intii ku soo biirtay sanadii 1992 filimkii ugu horeeyay waxa lagu magacaabay Beequdi waxaan la daawaday sanadii 1992 Kajal markaan eegno waalidiinteeda aabaheed waxa lagu magacaabay Shimu Muqraji halka hooyadeed lagu magacaabo Tanuja Kajal waxa la dhalatay hal gabar aan dhahay wayna ka yartahay gabadhan waxa lagu magacaabay Tanisha Muqraji haddii aan eegno saaxiibayaal Kajal iyo xogta aan kaga hadli doono maanta 7 filim ee iska diiday waxa kaalinta koowaad ku jira ma filimka ugu horeeyay waa filimka lagu magacaabo Dil To Baagalhe waan wada naqanaa mid kamid ah aflaamta loogu jecel yahay daawashadiisa markay timaado aflaamta ay sameeyaan Bollywoodka filimkan waxa la daawaday sanadii 1997 Kajal waxa ay dooq koowaad ee booska tirshada caanka ah Madhuri Dixit laakiin way iska diiday filimkani waxayna ku mashquulsaneed duwista filimkii caanka ah Ishqi oo la waday ama ay la wadaan saaxiibayaal Ajay Devgan iyo sidoo kale Aamir Khan iyo Jalwa filimka labaad ee iska diiday tirshada caanka ah ee Kajal waa filimka caanka Mohabbateen ka oo la daawaday sanadii 2000 Mohabbateen waxa uu kamid yahay sidoo kale aflaamta jaceylka ah ee aadka loogu xasuusto ninka lagu magacaabo Shah Rukh Khan Kajal ayaa dooq koowaad ee booska Aishwarya Rai laakiin way iska diiday sababtana lama xashaacin saaxiibayaal marka filimkan Mohabbateen waxa uu kamid yahay aflaamta iska diiday Kajal filimka saddexaad waa filimka caanka ah Kadar Ek Prem Khata waana mid kamid ah aflaamta ugu weynaa ay sameeyaan taariikhda markay timaado shirkadda caanka ah Bollywoodka filimkan Kadar Ek Prem Khata waxa la daawaday sanadii 2001 waxa hogaamiye ka ahaa ninka lagu magacaabo Sinudoli sidoo kale Amisha Patel laakiin Kajal ayaa ahayd dooq koowaad ee booska Amisha Patel waa iska diiday sababta iskaga diidana lama shaacin filimkani Kadar Ek Prem Khata waxa uu kamid yahay aflaamta ay iska diiday tirshada caanka ah ee Kajal filimka afraad waa filimka caanka ah Three Idiots dadku wada yaqaanaan filimkani waxa la daawaday sanadii 2009 waxa hogaamiye ka wada ahaayeen hogaamiye buux ka ah ninka lagu magacaabo Aamir Khan laakiin waxa sid mudan in Kajal filimkan iska diiday waxay ahayd dooq koowaad ee booska gabadha hadda Kareena filimkan ku jishay laakiin Kajal ayaa iska diiday oo xilligaas inay sameeyay filimkani laakiin booskeeda markii dambe waxa lagu bedelay tirshada caanka ah Kareena Kapoor filimka kale ee xiga waxa weeyaan filimka lagu magacaabo Veer Zara waxa uu kamid yahay aflaamta jaceylka ee uu sameeyay jilaha caanka ah Shah Rukh Khan Veer Zara waxa la daawaday sanadii 2004 laakiin waxa sid mudan in Kajal filimkani marka hore loo bandhigay laakiin waa iska diiday Kajal ayaa ahayd dooq koowaad ee booska gabadha lagu magacaabo Birita Zindi laakiin waa iska diiday saaxiibayaal filimka xiga waa filimka lagu magacaabo Kabi Alfidana Kehna oo macnaha noqonayso marna waa idin waa ka tagaya filimkan waxa la daawaday sanadii 2006 laakiin Kajal ayaa marka hore loo bandhigay dooqa booska koowaad ee gabadha lagu magacaabo ama waxay dooqa booska tirshada caanka ah ee Birita Zindi laakiin waa iska diiday saaxiibayaal waxa iyana ka dooratay inay jisho filimka caanka ah Ivana ka oo helawtay jilaha caanka ah ee Aamir Khan ka oo asigana soo baxay ama la daawaday sanadii 2006 filimka ugu dambeeyay ee Kajal iska diiday ama filimka toddobaad ee ugu dambeeyay ee xogteena ku saabsan tahay xawiyaan ama iska diiday Kajal filimka lagu magacaabo Jaldi waxa la daawaday sanadii 2003 waxa hogaamiye ka wada ahayn ninka lagu magacaabo Shah Rukh Khan sidoo kale tirshada Rani Muqraji oo ah walaasha Kajal oo ilmo adeer ay yihiin saaxiibayaal laakiin waxa xusid mudan in Kajal marka hore loo bandhigay booska tirshada caanka ah Rani Muqraji laakiin waa iska diiday inay jisho filimkani sababtana lama shaacin saaxiibayaal 7daas filim weeyaan 7 filim ee iska diiday kuwooda ugu caansan tirshada lagu magacaabo Kajal tirshada Kajal waa mid kamid ah tirshadaha ugu guulaha badan shirkadda Bollywoodka Kajal waxa lagu xasuusan doonaa aflaam ay kamid yihiin Kabhi Khushi Kabhie Gham Kuch Kuch Hota Hai Dilwale Dulhaniya Le Jayenge Ishqi iyo sidoo kale filimka caanka ah Baazigari aflaam kale oo aan la tiri karin saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa saaxiibayaal xogtii aan kaga hadlaynay 7 filim ee gabadha caanka ah Kajal iska diiday kuwa ay Soomaalidu aad u wada yaqaanaan fadlan haddii aad ka hesho muuqaalkan like inoo saar haddii aad channelka cusub tahay subscribe inoo saar si aad u hesho muuqaaladan iyo muuqaalo ka xiiso badan waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena